burburka gantaalka shiinaha ayaa la filayaa in maanta uu dhulka uu kusoo dhaco kadib markii saynisyahanada shiinaha ee hawada sare ay xarkaha u fureen gantaalka. waxaa la sheegay in meel kasta oo adduunka ka tirsan uu kusoo dhici karo, inkastoo suurtagalnimada ah in uu kusoo dhaco meel ay dad ay ku nool yihiin la sheegay inay aad ay u yartahay. hase yeeshee su-aalo badan ayaa ka dhashay gantaalada hawada sare loo diro ee sida ku talagalka ah dhulka loogu soo diro marka howshiisa uu soo dhammaysto, iyadoo aan laga welwelin halka uu ku dhacayo iyo saameynta ka dhalan karta. waxaa horey u jiray baaqiyo hay-adaha hawada sare ee mareykanka ee n s a ugu dirtay wakaalada hawada sare ee shiinaha inay nashqadayso gantaalada shiinaha qaab ay hawada dhulka ugu soo noqon karaan iyada oo aan xarkaha loo jarin. gantaaladii u dambeeyey ee xarunta hawada sare ee shiinaha ayaa hawada u dirtay loona yaqaana Tiangong waxaa dhammaantoodii ka maqnaa xargaha awoodda dib u soo celinta. kii ugu dambeeyey waxa uu ahaa axadii, markaas oo gantaal noociisi uu yahay Long March 5 uu qalab shaybaar uu qaaday amaba uu u qaaday saldhigga Tiangong. dowladda jeenaha ayaa arbacadii sheegtay in dib u soo celinta gantaalka ay halis yar ay u keeni karto qof kasta oo dhulka jooga, inkastoo oo ay badan tahay in uu ku dhici doono dhinaca badda. si kastaba ha haatee, waxaa jirta suurtagalnimada in qeybo ka mid ah gantaalka uu dhulka uu ku dhaco weliba meel ay dadka ay ku badan yihiin, sidii horeyba u dhacday bishii maajo sanadkii 2020 markaas oo ay waxyeelo soo gaartay dhismooyin ku yaala Ivory Coast. gantaalka ayaa hadda ku wareegaya aagga la yidhaahdo elliptical ee dhulka ku wareegsan, halkaas oo ay adag tahay in la xakameeyo marka loo eego shirkadda Aerospace Corporation oo ah hay-adda aan faa'iido doon ahayn oo fadhigeedu yahay California dalka Mareykanka. gantaalka waxa uu qiyaas ahaan dhulka kusoo dhici doonaa abaare 6:24 GMT saacadda dhinaca Ingiriiska ee maanta oo axada. aad ayay goor hore ay u tahay in si sax ah loo ogaado halka uu kusoo dhici doono haraaga gantaalka oo gaaraya 25 tan. meelaha suurtagalka ah ee burburka gantaalka ku dhici karo waxaa ka mid ah Mareykanka, Africa, Australia, Brazil, India iyo koonfur bari Asia sida ku cad saadaasha dhinaca cirka. shiinaha waxaa lagu eedeynayaa in ay taxadar la-aan weyn ay tahay in la ogaado in gantaal weyn uu dhulka kusoo noqdo isagoo aan la xakameyneynin, balse dowladda jeenaha waxa ay reer galbeedka ay ku eedeysay dacaayad iyo buunbuunin wax aan micno badan lahayn. gantaalka Long March 5 ayaa 2 jeer oo hore la gamay, waxa ay kala ahaayeen bishii May sanadkii 2020 iyo bishii May 2021. sanadkii hore shiinaha ayaa sheegay in gantaalka fakaday uu kusoo dhacay badweynta Indiya, gaar ahaan meel u dhow jasiiradda Maldives. warbaahinta afka dowladda shiinaha ku hadasha waxa ay sheegtay gantaalkan dhulka kusoo wajahnaa uu burburkiisii uu kusoo dhacay jihada bari. xarumaha Mareykanka iyo Yurub ee lagu raad raaco dayax gacmeedka ayaa dabagal xoogana ku hayay gantaalka jeenaha ee hawada sare kusoo socday ee dhulka kusoo wajahnaa ee lagu magacaabo Long March 5B. dhammaan dhacdooyinka wax dhibaata kama dhalan, balse waxaa si weyna u dhaleeceeyeen hay-adaha qaabilsan hawada. talaadadii wakaalada wararka ee jeenaha ayaa ku eedeysay warbaahin reer galbeed ee uu hogaamiyo Mareykanka in ay faafinayaan dacaayada ka dhana gantaalka Long March 5. Dr. Hag Lewis oo ku takhasusay haraaga gantaalada looga soo tago hawada sare waxa uu sheegay in 60kii sano ee lasoo dhaafay in hawada sare laga buuxiyey qashin iyo jajabka gantaalo. mas-uuliyadda qashinkaasi ayuu ku eedeeyey dhowr dal, waxaana ugu badan Ruushka iyo Mareykanka. xilliga casriga ah waxaa lagu baaqayaa in gantaalada hawada sare loo diro in lagu xakameeyo halkaasi, laguna xiro qalab u hagi kara in ay ku degaan meelo badqaba sida badda. laanta cirbixiyeenada Yurub waxa ay sheegtay in sanad kasta ilaa 100 dayax gacmeed iyo gantaala ay ku soo noqdaan dhinaca dhulka.